مثلا وقتي نبينا صلوات ربي وسلام عليه magaalada Madiina yimid magaalada Madiina markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam laba qoys ayaa u xoog badnaa markii yahuuda laga reebo niman la oran jiray Ree Aws iyo Khazraj labada qabiil oo isku aaba asalkooda way wada dhasheen laakiin laba qabiil oo hadana dagaal daba dheer oo muddo socday uu ka dhaxayay buu ilaa waqtiga nabigeenu imaanayo wax yar ka hor yaani way isku baabeen odayaashoodii iyo ugaasiyadii iyo salaadiintii iska laayeen labada reer ee marka magaalada wada degan nabigu waqtigii uu yimi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi muusan tirtirin muusan dhin maadaama aad islaamkii qaadateen oo diintii aad qaadateen aws wax la yiraahdo ma jirto iyo ugaaskoodu ugaaskii Khazraj waa lagu casiyay muslimiinta aad ka tirsan tahay ma dhihin nabigu sallallahu alayhi wasallam labada nin baa ugaasiyay u ahaa Sa'd ibn Ubaada iyo Sa'd ibn Mu'aad labada nin baa ugaasiyay u ahaa labadoodiiba sidii buu u daayay nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasa waxa loo ajiheeyay qabiilkii oo sidiisii u dhisan oo yaani wax weeyaan abtirkii jiro oo suldaankoodii iyo ugaaskoodii leh baa waxa loo jiheeyay dhanka khayrka loo jeediyay ilaahay waxay gaadheen marka khayrka ay ku tartamaan oo qolo markay wax qabato oo lib soo heeyso qolada kale ay yiraahdaan annaguna waa inaan iyadoo kale soo heeyno yaani waxaad garanaysaa xadiiskii Sahih Bukhari ku soo arooray labada reer mid kamida ayaa waxay soo dileen ninkii la oran jiray Ka'b ibn Ashraf ee yahuudiga ah ee nabiga caayay jiray salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dhibka badnaa ee gabiyi jiray nabigu gabaya ku caayay jiray ninkii baa waxa soo dilay labada reer mid kamida reerkii kala nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam waxa yiraahdeen nabi Allah annagana waxaan rabnaa oday sida Ka'b ibn Ashraf oo kale isaguna ugaasoo la yaqaano yahuudiya inaad noo dirto annaguna soo dilo علشان reerkan inuu naga horeeyo ma rabno magaca inay la tagaan iyo libta ma rabno waxaan rabnaa anaguna mid aanu lib ku qaadano toodo kala nabigu sallallahu alayhi wasallam saafilay wuxuu u diray Salaam ibn Abi Huqayq nin dhii jiray ayuu u diray kiiba iyaguna soo dileen hatta waxay ahaayeen goobaha dagaalada qaar kood markii la mari waayo waa la qaybin jiro waxa la jiray reerkii idinkuna halka furinta ka gala dagaalka idinkuna furinta ka gal reerkii demeeshiisa laga soo dhaco isaga wala tartamaya mar ceeb baa la iska riixaya ree hebel baa macnaha yaani wax weeyaan yaani wixii shalayto sharka iyo xumaanta xageeda u jeeday baa maanta khayrka xagiisa loo jeediyay laakiin dhismihii wali waa jira marka dhismahan qabiilka waxa loo adeegsan karaa dhanka khayrka loo adeegsan karaa jiritaankiisa marka sharcan waa loo baahan sharcan shariicadu waa u baahan tahay shariicadu way taqriirisay waana sugtay mujtamaca bashariguna waa u baahan yahay wax qabiil la yiraahdo abtir inuu jiro sidiisaba oo takwiinkan cashaa'iriga ah reerka inuu san dhamaanin baa la doonaya si kasto magaalo loo galo si kasto loo hormaro si kasto nolosha hormar u qaadato waa inuu wali jiro abtirkuna xifdisan yahay yaani waxa way takwiinkan iyo dhismahan qabiilkuna inuu jiro la doonaya waa asaas saas macna saas daraadeed baa nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi bu aad wuxuu uga digay sideedaba durida iyo wax ka sheegida nasabka rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa ka digay oo wuxuu nabigu kamid xadiiskiisa kamid xadiiska Abu Malik al-Ash'ari ee Muslim soo saaray arba'un fi ummati nabi sallallahu alayhi wasallam min amri al-jahiliyya la yatrukunahunna afar arimood arimihi jahiliyada ayay kamid yihiin ummadayduna ka tagi mayso nabi sallallahu alayhi wasallam islaamka ka hor gaaladii ahaa dhaqamada laga soo gaaray bay kamid dhaqamadaana dayn maayaan buuri ummadaydu nabigu saas yiri sallallahu alayhi wasallam yaani waa dhaqan xun hadana la iska kari maayo waxa kamida al-fakhru fil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal-istisqa'u bin nujum wan-niyaha bu nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani inuu ruuxu sharafkii reerkooda ku faano waa mid talabaad waxa weeye nasabka duridiisa in nasabka la duro oo la qaar la yiraahdo waa nasab dhiman oo qaan la yiraahdo waa gun oo nasabka wax laga sheego ayaduna waa talabaad ta saddexaadi waxa weeye waa in xidigaha roob lagu dalbo oo loo arko xidiguhu inay roobka keenaan ama lagaba codsadaba inay roob keenaan ta afraadi waxa weeyaan waa baroorta meydku markuu dhinto loo barooranayo
afartaasi oo arrimay jaahiliyadii ka soo jeeda ummadaydu dayn maysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam macnaheedu waxa weeyaan nasabka duridiisu nabigu waa nahiyay waana reebay sallallahu alayhi wasallam bal waxa ka sugan inuu yiri ruuxa nasabkiisa ha loo nabadgeliyo ruuxa nasabku sheegto waa in loo nabadgeliyo saas way macna waxa kaloo kamid ah qaababka shariicadu ay u ilaalisay midalan shariicadu xad bay ka dajisay zinada la dagaalantay oo xad bay ka dajisay oo xad aad u adag baa laga dajiyay ruuxii zinaysta hadduu guur u horeeyayna in dhagax lagu dilo hadduusan guur u horreynina in 100 jeedal lagu dhufto maxaa saa loogu samaynayaa waxa loo samaynayaa xifaadan cala an-nasli wa man'an li ikhtilaat al-ansab nasliga iyo taranka bini aadamka la ilaalinayaa waxaana meesha laga waxa way laga taxadarayaa inaysan isku darmanin ansaabtu inaysan isku darmanin nasabku inuusan isku darmanin oo hadii haweentii ay nin walba ka dhaxayso oo adiguna maalin aad marto midna kaaga dambeeyo ku saddexaadna kaaga dambeeyo ilmahan dhashay yaa dhalay bini aadamkii hadduu noqdo oo sida xoolaha la isu boodo oo meelaha meeshii la iska halaba tii ka soo horbaxda waa ku banaan tahay soo abtirka dhan lumi maayo abtirka dhan baa lumaya waxa weeyaan lama garanayo naagtan yaa ilmaha ka dhalay lama garan doono ilmahan hadii la garan waayo yaa dhalayna abtir male mar hadduu abtir ku lumana bas weeye bulshadaas waa bulsho daba go'an waa bulshooyinkan reer galbeedka hadda dhibaatada haysato way bulshooyinkan reer galbeedka dhibaatooyinka haysato way eedda male oo adeer male oo habaryar male oo ayeeye male oo meel u baxsan male tii dhashay buu garanaya tii dhashayna maalintu 18 gaadha isugu dambaysa sooma marka waa daba go'an yahay horay iyo gadaalba waa ka daba go'an yahay adiga xagga hadaad aado aabba hadaad aado badweyn baa ka xig xagga hooyo hadaad aado badweyn baa ka xig dhinacyaha hadaad aado badweyn baa ka xig khalqi ilaahay baa kugu wareegsan subhanahu wa ta'ala laakiin bal ninkan adigu arag dabada go'an arag meel uu u dhaqaaqi male waxa laga yaabaa hadaad tiraado magaca waa hebel magaca aabaha hooyadii buu ku sheegay soo waxa laga yaabaa hooyadii inuu ku sheego hooyadii hadaad magaca saddexaad sheeg tiraado ama magaca familka sheeg hadaad tiraado inuu garan waayo laga yaabo ama mid ergisa meelaha uu ka soo qaato sooma shariicadu marka waxay leedahay sababta keentayna waxa weeye mujtamaca hadii aan zinada laga dhowrin oo faaxishada aan la waardiyeenin oo bulshadu shahwada markay gudanayso guri la yaqaano iyo laba isqabta iyo meel bulshadu ay og tahay oo ilma ka dhalanayaan oo wixii halka ka soo baxa in hebel uu yahay oo qaab noocaas oo kale hadayna bulshadu u samaysnayn hada wixii soo baxay wax weeye waa wax warshad jin ay soo saartay warshad jin baa soo saartay yaa soo saaray waxan meesha yaacay wax soo saaray lama yaqaan abtir male mar hadduu abtir kullumo macnaheedu waxa weeyaan bini aadamka nasligiisa iyo tarankiisa iyo jiritaankiisu wuxuu ku salaysan yahay in abtirka la ilaaliyo abtirka hadduu ilaashan yahayna qabiilkii waa jira intaasi waxaan ula jeedaa macnaha ujeedadan kale waxa weeye dad baa laga yaabaa inay u qaataan qabiilka jiritaankiisuba inuu yahay balaayo oo dhan oo markaa kadib bilaabaan inay yidhahdaan qabiilka la tirtiro maaha qabiilka la tirtiri maayo qabiilku waa jiray qabiilka shariicada ha jiro inta maslaxana ku jirta litacaarafu baa lidhi tacaarufkana inta aanad sheegay ka badan baa ka dhalanaysa markii la gartay inaad in hebel tahay oo ree hebel tahay warku wacdi